aliyo waxaad iiga warbixisaa xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanka Saylac oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay mudaharaadyo. والله نوحو حالتها دقنتهي وحرب شدينا وجران شالي وقتي أي مدارات وكدعي إلا قلن كي دنبواتي الرصاص يو شعب كيو قدودسن يعيدان كويس كدهان يدو وقت ساريان وماشا كدهن بس أنكو دلك تشوتكو مغناء قلن كي دنبسو دلي arrinkina barasaabka la wareegay marka caliyow ninka laga soo horjeedo waa ninka maamulaha customka ee Saylac Faysal Magafa ninka la yiraahdo maxay tahay sababta ninkaasi looga soo horjeedo ay dadka reer Saylac uga mudaharaadeen wallahi ninka asoo ninka Magafa waxa laga soo horjeedo waxyaabaha laga soo horjeedo waxa weeye horta wakii cabashooyin fara badan bariyaada ay ka socdeen oo ninka laga cabanayay oo waxyaabo fara badan oo shaqadiisa ka baxsan ay dadku ku eedeynayeen inuu hayo laakiin tan u dambeysay markaan eegnay oo mudaharaad ka dhacay waxay ahayd waxa weeye customka Saylac ee isagu maamulaha ka yahay iyo dikada meesha ay dadku ka luugtadaan xeebtu waa hal wado kaliya marisay wadadii uu xiray oo customkaan xirayaa yiri wadadaasina wadada ay dadku ka adeegtaan ay kalluunka doonayeen bay hay صح wadadii markuu xiray ganjeel buu ku xidhay ciidan baa hortaagan dadkii si xorriyada ay ugu kalluumaysan jireen badda wuxuu kaar lagu galo iyuu sameeyey oo badda lagu tagayo adigu waxyaalaha si gadoodaan dadku sheegayeen caliyo waxa nagu maqaala oo aanu maqlaynaa ninkaasi Faysal Magafa maamulaha customka in uu cashuur xad dhaaf ugu soo rogay ganacsatadii deegaankaasi iyo shidaalkii uu qaaliyeeyay oo uu cashuur ku soo rogay arrimahaasi maxaa ka jira wallahi arrimahaasi way jireen laakiin tan u dambeysay arrimaha way soo dhaaftay oo arrinku cashuurba waa u dhaafay dadku wax kale sheegayaan waxay sheegayaan in uu kala qof sameeyo in uu dadka madaxa isu geliyo inuu maxay ahayd dhalinyartii isku dhufanayo oo ka dhex shaqeynayo waxyaabo shaqadiisii ka baxsan cashuurtu waa shaqadiisa ma garan صح marka wax shaqadiisa ka baxsan bay dadku ku sheegayaan inaad warbaahinta hore uga daawatay mooyaane waan gartay caliyo waxa kale jirta in cabasho ay gudbiyeen wasaaradda maaliyadda Soomaaliland dadkaasi Saylac ku dhaqan kuwaas oo kaga cawdeen ninka Faysal Magafa la yiraahdo sidoo kale waxa la leeyahay ninkaasi iyo wasiiradu aad isku dhow yihiin waxna way ka qaban weyd iyadu waxa dadkan cod kale saabin markay gobolka soo gaadhay ay dadku sugayeen aad ugu dhursigayeen waxa islaayeen la kulmaysan ama waxba isweydiinaysan bay islaayeen laakiin wasiiradu waxay Jabuuti gashay waqtiga halkan timid oo dushay ka martay magaalada Saylac markii ay soo baxday dushay ka martay oo xataa cashadii halkan loogu diyaariyay ma ay soo doon magaalada Caasha Caday ku nasatay waxa dhacday halkan leeyahay iska leeyahay magaalada Caasha Caday ka daba tagay magaalada Caasha Caday markii uu tagay odayaashuna inay la kulanto waa ay diiday marka caliyo adoo soo koobaya saacado soo koobaya bal xaaladii maanta ugu dambeeyay aad ay iska dagin saan noo sheegtay xaaladu way degantahay waxa laga dhigaya gudoomiyaha gobolka iyo madaxdii gobolka arrinkii guddiga loo saaray oo soo eegayso waxyaabihii khalad ninkaas uu ku qalbiyay guddiga laga dhigaya in kasta wali ay saxaafadii adeegsanayo oo maxay ahayd saxaafadii lafteeda kala qoqol ku sameeyay qaarna warka siiyo qaarna siin saxaafadda qaar bay adeegsanayaan wararkii shalay beeniya oo mudaharaadkii shalay beeniya ay leeyahay oo xataa warbaahinta ka daawan doontaa waad maasan tahay kaasi waxa uu ahaa Cali Xajar oo ah wariye madax banaan ahna wariye ka tirsan telefishinka Somali Channel oo jooga magaalada Saylac oo nooga warbixiyay guud ahaan xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Saylac aad baan maasan tahay Cali Xajar adiga mudan nafkadiyo